kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan waa Bulsha Sports TV markan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobada idin hayna waxaa kamid ah Crystal Palace oo ku dhow Michael Olise, Eduardo Camavinga oo dalab ka helay Chelsea, Liverpool oo wada hadallo la furaysa Savic, Napoli iyo Atalanta oo isku haysta xidig ka ciyaara Sweden, Kylian Mbappe oo ku sii dhawaanaya Real Madrid. intaasi waxaan qodobadii warka tan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan. Crystal Palace oo ku dhow Michael Olise, qodobkaasi waxaa eegaya Xasan Cumar Xuseen. Crystal Palace ayaa ku dhow inay dhamaystirto heshiis 8 milyan oo gini oo ay kula soo wareegayso weeraryahanka kooxda Reading Michael Olise sida laga soo xigtay BBC Sport. 19 jirka reer Nigeria ayaa la filayaa inuu noqdo saxiixii ugu horeeyay Patrick Vieira ee Crystal Palace kadib markii loo magacaabay daayarta ugu fiicnaa 2020 iyo 2021. Eduardo Camavinga oo dalab ka helay Chelsea, qodobkaasi waxaa eegaya Xuseen Cumar Xuseen. waxaa sii kordhaya hardanka loogu jira saxiixa xidiga khadka dhexe kaga ciyaara naadiga Rennes ee Eduardo Camavinga iyadoo xilligan waxa kale ku soo biirayaan doonistiisa. warka imanay dalka Faransiiska ayaa sheegay in Chelsea haadan ku soo biirtay loolanka loogu jiro saxiixa xidiga daayirka ah. Chelsea ayaa noqotay naadiga labaad ee ka dhisan Ingiriiska taasoo si cad xiiso uga muujisay Camavinga. Manchester United ayaa diiwaanka xidigaha ay doonayso ku darsatay laacibka Camavinga. Liverpool oo wada hadallo la furaysa Savic, qodobkaasi waxaa eegaysa Qamar Maxamed Cumar. xidiga qadka dhexe kaga ciyaara naadiga Lazio ee Milinkovic Savic ayaa dib u helaya xiisaha qaar ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub. si kastaba ha ahaatee Liverpool ayaa haatan lagu soo waramayaa inay dib u soo nooleysay xiisihii ay u qabtay laacibka reer Serbia, iyadoo wararku ay intaas ku darayaan inay si toos ah ula xiriirtay naadiga uu laacibkan u ciyaaro ee Lazio sida laga soo xigtay Calcio Mercato. xidiga qadka dhexe kubadda ka maamulo ayaa horaan diiradda u saarnaa kooxo ay ka mid tahay Manchester United, balse ma jirin koox aqbashay qiimaha ay naadigiisa ku dooneysay inay ku iibiso. haatanna wararka ka imaanaya dalka Talyaani ay sheegayaan inay Lazio iibka Milinkovic Savic dul dhigtay 60 milyan oo gani, balse Rennes ayaa dadaal ugu jirta inay saxiixa 26 sano jirkan ku dhameyso qiimo intaas ka hooseeya si ay u sameyso saxiixyo kale xagaagan. Napoli iyo Atalanta oo isku haysta xidiga ka ciyaara Sweden. daafaca dhexe ee Bosnia Herzegovina oo 22 jir ayaa wacdaro ka dhigay Sweden, waxaana soo jiita taageerayaal ka socda England iyo Italia. kooxaha ku xifaaltama Serie A iyo Napoli iyo Atalanta ayaa diyaar u ah inay u dagaalamaan saxiixa daafaca maalmo Anel Ahmed Hodzic, iyadoo kooxaha Premier League iyo sidoo kale xiiseynayaan daafaca dhexe ee caalamiga ee Bosnia Herzegovina oo ku dhashay kuna barbaaray Sweden ayaa aad ula dhacay maalmo xilli ciyaareedkiisii la soo dhaafayna waxaa loo magacaabay daafaca ugu fiican ee daayarta. Ahmed Hodzic ayaa haatan diyaar u ah inuu dardargeliyo horyaalka weyn ee Yurub ah, wuxuuna xiise ka helayaa labada dal ee England iyo Italia. Kylian Mbappe ayaa ku sii dhawaanaya kooxda Real Madrid. daayarka kooxda Paris Saint-Germain iyo xulka France ee Kylian Mbappe ayaa u muuqda mid muujinaya sida uu doonayo ku biirista Real Madrid. heshiiska uu Kylian kula joogo Paris ayaa mid ka dhacaya xagaaga dambe ee 2022, wuxuuna u muuqdaa mid aan diyaar u ahayn inuu wax heshiis kordhina u sameeyo kooxda PSG. Mbappe ayaa lagu soo waramayaa inay wada hadallada heshiis kordhinta isku diideen agaasimaha kooxdiisa ee Leonardo, taasina ay dhalisay inay madaxweynaha kooxdaas ee Nasser Al-Khelaifi oo isagu shakhsiyan u gal xaaladiisa. xilligan talaabada uu qaaday Mbappe ee hadalhaynta kala dhalisay ayaa ah inuu fasaxiisa xagaagan dalka Greece kula qaadanayo weeraryahanka Real Madrid ee Karim Benzema oo sidoo kale Faransa soo wada mataleen koobka qaramada Yurub. UEFA oo aad dusha uga tuurtay taageerayaasha xulka Ingiriiska. warbixintaasi waxaa eegaysa Qamar Maxamed Cumar. xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa ku soo eedeeyay taageerayaasha xulka qaranka England laba kiis oo ka dhacay kulankii xalay ee la ciyaareen dhigooda Denmark. kulankii wareega nus dhamaadka tartanka Euro 2020 oo 2-1 guusha ku raacday 3 libaax kadib waqtigii dheeriga ah. xiriirka UEFA ayaa Ingiriiska ku dacweeyay inay laser ku aadiyeen wajiga goolhayaha xulka Denmark ee Kasper Schmeichel markii uu Harry Kane tuuray rigoorada. kiiska kale ee xulka England
loo haysta ayaa inay qalalaaso ku sameeyeen heesta astaanta qaranka ee Denmark ka hor inta aanan la baasan ciyaartaas. Kiisaskaas ayaa baaris dheeraad ah lagu sameyn doonaa, waxaana UEFA ay sheegtay inay sharciga marsiin doonto xulka England iyo taageerayaashiisa haddii ay eedeymaha loo haysto ay noqdaan kiisas cad. wararka ciyaaraha bulsha Sports TV iyo anigoo Municima waxaa idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.